miisaamaya acmaashiisu aad u tiro badan oo sayi'aad ah markaasaa qofka waxaa lagu yiraahdaa rabbi ku yiraahdaa subxaanahu wa tacaala acmaashaadii ka waran rabbi oo kulli waxaan sameeyey halkan yaalaan waa arkaa buu dhaha markaasaa lagu yiraahdaa wax kaa maqan innaba ha yaraatay acmaashaadii ama jiraan wuxuu oranayaa maya rabbiyow rabbi wuxuu yiraahdaa bal si fiican ha loo dhowro wax kaa maqan ood xusuusatay ma jirtaa maya markaasaa la soo saaraa warqad yar ay ku qoran tahay laa ilaaha illa allah meeshiisa kana kaa maqan maxaa yeelay rabbi subxaanahu wa tacaala waa axkamu alxaakimiin acdalu alacaadiliin weeyaan rabbina subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ma dulminayo wama allahu yuriidu dulman lilcibaad markaasuu wuxuu oranayaa rabbiyow sijilligan iyo warqadan yari maxay ka taraysaa 99 warqadood oo xumaan uu sameeyay halkan buuxee tan halka xabaa maxay ii taraysaa rabbiyow waa isdhiibay inuu naar galayo go'aansaday markaasaa loo miisaamaa miisaanka loo saaraa warqadii yarayd tii kale oo halkan ay u dheeliyay xumaantii oo kulli ay hoos gashay yaa warqadii yarayd miisaanka loo saaraya iyadii baa culays noqonaysa wuxuu dhan ka raajixsanaanaysa marka sidaas qofkii marka ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo fadligiisa uu ka helaya laa ilaaha illa allah marka wax sahlan ma qofka carabkiisa ku badiya waxa suurtagal ah oo u badan tahay markuu sii dhimanayna isagoo laa ilaaha illa allah inuu dhimanto oo markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku daro kuwii nabiga inoo tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayhi carabkiisa ku tilmaamay oo nabigu yiri salawaatullahi wasalaamu calayhi man kana aakhir kalaamihi laa ilaaha illa allah dakhala aljanna